qaahiru joogay markay guursatay noloshiisu may ahayn mid isku toosan safiya maanta iyada ku tacabtay sida qofka loogu tabco ee ilmahaaga aad ugu tacabteed u korisay jaamacad u geyso ayay ugu tacabtay inay maanta xoolo iyo wax walba iyo inay dhoofiso iyo inay kaxayso ay samaysay wiilkaas safiya iyadu maanta furaash xariira iyo raaxa ah oo jacayla ayay goglatay ay rabtay inay goglato guri yagleelato laakiin iyadu may gafana guursabay istiri laakiin furaashkii ay dhigatay mas baa ku hoos jiray mas ayaa ku hoos jiray iyadu waxay tiri 2 sanaan ku noolaa laakiin 3 years bay hel ku noolay 3 sanadood sanad bay ka jirtay waxaan rabaa xaqiiqda jirta inaan idin sheego safiya markii la guursaday arrintaasi dhacday safiya horta way xanuunsanta sideeda ma aha she is not herself markii iyadoo hadda arrinta ay ugu timid ay ka timid Mareykanka ay ka timid ee xagga tagtay waxay u tagtay cilaaj safiya waa la sixiray way xanuunsatay waxa way nolosheedii dhan baa lala wareegay telefoonkeeda waxa lagu xidhay wax la yiraahdo team view halka laga daawado not only TV iyo waxa telefoonka caadiga haysato noloshaada caadiga ah shaqo hadaa tagayso wax kasta hadaa tagayso waxa weeyaan safiya waxa lala wareegay waxeedii oo dhan nolosha iyadoo ku jirta ayay maanta waxay u timid inay ilmaheedii xanuunsanayay caruurteedii ka soo tagto ay istiraahdo muxuu ahaayay iscilaaj ninkeediina wali isqabaan laakiin noloshu aad u xunto heel tahay Soomaalidan garanin safiya markay xagga tagtay waa la dabiibay quraan baa la saaray dadkii wax xoogaa way fiicnaatay culimadii way ula hadleen waxa lagu yiri fargal iyo bahal ay sidatay bixi fargalkaana bixi waxa weeyaan waxna looma qarin safarka fargalka iska bixi ninkaana ha u dhawaanin telefoon yuusan ka soo wicin caadi baa loogu sheegay safiya wax kasta ayuu ogaatay maalmay ahayd safiyadeedii oo ay jacanigi waxa la yiri noqotay qof si hurdo ka soo kacay oo kale noloshay ku jirtay waxay ku jirtaba ay la yaabtay maalmo yar oo kooban safiya iyadoo sidii ku jirto wali cilaajkeedii waxay u socdaan way ka farabaxsatay wixii ku dhacay oo haddana waxay gacanta ku dhigay wiilkii awalba gacanta ku hayay telefoonkeedii iyo fargalkii iyo waxyaalihii oo dhan martiibay lagaga celiyay safiya waxa la saaray xitaa waardiye inta la saaray baa la yiri social media ayay gelin iyadoo safiya saaran waardiye oo la hayo ay dhalinyaradii haysay ku tiri waan seexanaya madaxa ay xanuunaya telefoonka intuu ka soo wacay buu ku yiri dhageyso inaanan arrinta dhacday ee snapchat-ka la geliyay shaqo aan ku lahayn waa inaad wacdo nink waxa ku soo wacaya shiina culay markay la soo waco wareysanayay inaad wiilkaasi waa bari isaga ku yiri qof kasto safiya wacay oo wareystay ninku isaga shaqo kule waa inaad wacdo arrinta beenisa lagu yiri safiya wallahi inaanan been idin sheeganiyo billahi beeni baa lagu haddaad wacdaan lambarkeeda idin siiyo wuu maqlaya waxa kula hadlaysaan awooday ku dilid garaysana male haddaad been idinka ay doonaysan safiya telefoonkeeda caawa haddaa wacdaan Itoobiya jooga horta wiilkii wuu baxsaday dirir dhabuu joogaa wiilal reer Jabuuti buu la joogaa waana la qaban lahaa maanta safiya dadka iyada ka hortaagan safiya hadda waxa weeye bilkoos waxba laga hayaabaa lagu yiri safiya noloshaada wajaale maalintu ka talaabay wuxuu yiri wajaale maalintu ka talaabay wuxuu yiri waan ka baxay xuduudda Soomaaliland waxaanan ku sheegayaa noloshaada inaanan geerina ka dhigayn nolol la aanan ka dhigin waligaana anigu aan kuleeyahay waxaad samay kartaana ayna jirin waa safiya loogu hanjabay xuduudda Soomaaliland waan ka baxay dirir buuna joogaa Cabdi Ciise dirir dhabu fadhiya safiya cid walba oo wax qaban lahayd iyada ka hortaagan hadday dadkoodu hadli lahaayeen ama asxaabteedu hadli lahayd oo waxa jira sheegi lahayd iyada oranaysa anaa ku beeninayo soo fadhiisanaya way telefoonka inta lagala hadlo buu oranaya wallahi waan soo dhigaya hadduu qof hadlo anigu caawa arrinta aan qarxinayo de isagu hadduu xiniye leeyahay soo dhigo anaa qarxinayo caawa la taagani safiya horta waxay ku jirtaa waa noloshaas dadka wareysanaya safiya waa waxa weeyaan isaga ka dambeeya in iyadu cidda wacato oo la wareysto u sheeg naya haddii kale wallahi billahi tallahi waxa dhaca waa dadkii qofka waa inaad ku tiraahdaa ninkaasi wax alaala waxa uu shaqo ku leeyahay dambiilii ma jirto horta safiya say ninka u difaacaysaa waa saa wallahi inaanan been idin sheegin waxa weeyaan marka isagii wax walba wuu la socdaa dadkiisina wuu u sheekaynaya gabdhihii way xanaaqeen hablihii isaga la qabiilka ahaa maanta isaga inankaas ciida gale way xanaaqeen gabadhii damiir kasta way xanaaqday
Facebook is eega wax walba uu daawadaa dadkana ma aqbalo laakiin Safiya hostage baa lagu haystaa Safiya waxa lagu yiri hadda ugu dambeyntii finally $20,000 haddaad bixiso kilibka waan tuuraya kilib baan ka hayaay $20,000 iga siiso haddii kale publican soo dhigaya Safiya waxay u leedahay any minute nolosheedu way dhici kartaa inay destroy noqoto telefoon baa dhegta loogu hayaa Safiya telefoon baa dhegta loogu hayaa waana lala soo hadlaya waxa la leeyahay arkay Somaliland wuu ka baxay hadday dil oran lahaa ninka qabta oo maanta la oran tigtiga la hadli lahaa oo Ethiopia la hadli lahaa Soomaaliya qaban lahaydna Safiya iyada ka hortaagan ba oo lama hadlayo yaan la hadlin yaan juuq la oranin yaan la sheegin yaan la waxaynin billahi alaykum Soomaaliye maanta ninka xalaashi gabadha ku guursaday ee reerkeedii ka doonay ee adeeradeedii iyo aabayaasha walaalaheed ka doonay ee sharafta ku guursaday ee ay ku tabacday ee ay wadaagtay inay tiri haddaad mid la dhaafdhaafiyo ka dhigatid xariir ka dhigtid mid unbaa kugu qabsanaysa ay leedahay Safiya marbu unsigeeda iyo cadarkeedu baxayay Safiya waxay gacanta u gashay wiilan diin iyo dhaqantoona ilaalinay bay u gashay dadkan maanta dambaalka u dilayeen ee telefoon inay kula hadalna mooyaane baxsay ba horta ninkaasi maalintu xadka ka baxay wajaale buu bareeray wajaale markuu ka baxay xadkiisa ayuu horta bareeray markii hore dhan wisnabayay Safiya u soo tuura hadii inay nagu xisaabtanto oo wax ku dhici kara jirin Safiya u soo tuuray inay sharafteedii iyo gabadhnimadeedii hagooganta Safiya u soo tuuray inay tahay hooyo Soomaaliyeed gabadha jeclaan lahayd caawaaga in lagu xidho telefoonkaaga nin Soomaaliya jooga adigoo Ingiriiska jooga inuu ku maamulo gabadha jeclaan lahayd maanta adoo Mareykan joogta in lagu maamulo gabadha jeclaan lahayd maanta adoo hooyo in lagu hostage gareeyo this is the reality ay ku nooshahay Safiya ay ku nooshahay Safiya waxa weeyaan dad ka dhiidiya may waayin dad u hiiliyana may waayin xaqiiqdi markaan soo helay dad maanta gobonimada reerka ninkaasi ka dhashay wax ka qabtana lama waayin laakiin iyadii baa xanuunsan oo maskaxdeedii caadi ahayn oo go'aan gaari karin oo isu haysata inay qaflad ku jirto oo la leeyahay waa lagu dilayaa oo lagu leeyahay waa lagu ceebaynayaa oo la leeyahay lacag keen $2,000 buu qaadanayay biilka believe or not $2,000 every single month Safiya baa lagu xujay inay jirto iyadoo Mareykan joogta imagine hooyada joogta Mareykan ee aan decision gaari karin because caafimaadkeedii ma joogin she is not herself maanta maxaa idinku lahaa si xirto ma jirin Safiya waxa weeyaan fargalka maanta aan xidhanahay loo xidhay jacayl baana loogu xidhay jaarkas kaasoo kale ayaa jacayl loogu xidhay jacaylkii fargalkii loogu xidhayna fargal sixiran buu ahaayay balaayo kala kulantay oo iyadoo joogta Mareykan la abiyuusay oo iyadoo joogta Mareykan la yiri intaasoo lacag bilowba soo dir oo iyadoo joogta Mareykan qofka wacaya iyo qofka ila hadlaysa muxuu ahaa iyo aniga adiga hadashay bal lahaa Safiya maanta waa hostage soo maydan arki jirin qof la afduubay oo meel cadow ku hayso Safiya waa la haystaa waxa ugu daran qofku inuu ku qabsado waa inuu maskaxda laga qabsado caafimaadkaaga lala tago Safiya burca loo qaaday believe or not burca la geeyay rusheeye iyo waxa loo geeyay dadka halka joogay Safiya maaha qof aynu oran karno why she did this why she didn't do that ma garanaysaa maanta wiilkan le 22 baan ka siisanayaa marwadeydii inaan ku fareexeeyo ee ay iga iibso ila waa ay iga iibso ma garanaysaa ay iga iibso de waxaan leeyahay warnayo 40 baan ku siinaynaa deena hor ima waa agreement kana laga ha isku yaraynin 40 baan ku siinaynaa taariikhda Soomaalidana waan kugu qoraynaa oo Cabdi Ciise Cajuun la yiraahdo ayaa sanadkii nooca ahaa xaaskiisii intuu taa ku sameeyay oo fiidyo qaatay oo sidaa yeelay ayuu iibiyay Google-kaana ku geynaynaa si loo soo hele dee soo baxo agreement nala gal lacagtana 20 baan kuugu darnay isagu wuxuu isiri Safiya un cunaha ku dhig waxa tira bahal la yiraahdo guduudane oo barigan gabadha yar ah ay ariga raaci jiray baadiyaha xoolaha laga ilaalin jiray guduudane marka neefku ma qayliyo haduu qabsado halka cunaha abu ku dhaga uu la fadhiistaa dhiigu ka jaqa neefko baqtiyo buu sii daaya ma neefka dawacada iyo way qayliya guduudane lama arko ninkani marka waa guduudane
gabadhan uu cunaha ku dhig buu isiri cidina kuma ogaanayso Soomaaliya kuma ogaanayso waayo iyadiiba wuxuu gaarsiiyay heer ay isaga difaacdo oo ayna ka sheekayn oo dadkii markay yidhaahdeen waanu muxuu ahaayey waanu ka hadlaynaa ay diideen oo iyadu u diiday oo markii la yidhi halala hadlo ay iyadu diiday ma fahanteen walaalayaal markaa Soomaali horta waxa jira waa saas tusmana love iyo jacayl iyo support ayaan u muujinaynaa waxaanu u sheegaynaa inaan sharafteeda waxba gaadhin waxaan u sheegaynaa inay stiil tusmo tahay waxaan u sheegaynaa inay tusmo ahaan doonto waxaan u sheegaynaa wax ka qurux badan qabiilkay ka dhalato difaaca inay difaacayaan oon Soomaalinimo ku difaacayno waxaan u sheegaynaa inuuna far nagala baxaynin